إلهي بمهضلة مركل لبعض وحان هذا علينا يا جالية ده هالكن يقول دويسي دوينتا يا فرحدا رينتا قلب وناقة هميقة يديلة صومال النمذا وكم هتنتي انت اسكسكو قدوميها جالية ده وضن كان سامبيا هذا علينا يا هذا الذي السنة وهذا اللي نقول بيصير وأنا ذو قيراضي إنه يرهل كان ولقيت هالجالية ذاك جرتي والجالية صومالية قلوا ملك قبيل ملك وحن رجينا يا إن سيئة كيسان صومالي نمذا وحن رجينا يا كو ودن مذا كلا جيوغا يودن كدحجي كو جيوغانا إن إذن كبرتان إن قرنك كوي لباتنات إن صومالي قبيل لو قيبية إن الدنيا كلها ترتمي كرين نولنا اللي سمين كرين دادك صوماليا waxaan aad ugu faraxsanahay in dad Soomaaliyeed rag iyo dumar gabdhay wiilal isugu jira oo halkan u jooga inay shaqeystaan madaxda wadankan ay noo sheegtay in dalka aad idinkaga jecel yahay dhaqaalaha wadanka aad qayb weyn ka tihiin waa wax lagu faano aad loogu farxo laakiin waxa muhiim ah in qof walba uu og yahay meesha uu ka yimid qof walba wadanku uu yahay marka ugu dambaysa waxaad sharaf dunida meel walba joogto ku yeelanaysaa markii wadankaadu uu hagaagsan yahay waxa lagu sharfayaa marka aad gurigaada ku sharfan tahay waxa xoog yeelanaysaa marka aad dalkaada xoog ku leedahay dalkaaduna xoog leeyahay kulligeen marka inaan u soo jeesano dalkeena inaan dhisano aad ay muhiim u tahay halkan aniga iyo wafdigaan hogaaminayay aniga u mahad celinaya safaaraddeena isiyaayaheeda waxaan u nimid inaan saxiixno heshiis aan uga mid noqonayno ururka afrikaanka caalamiga ee la yiraahdo COMESA halkaasoo aniga iyo madaxweynaha Madagascar gudoomiyaha u ah iyo qofka maamulo ururkaas oo Secretary Generalka sidaad arkayseen aan ku wada saxiixnay heshiis taariikhi ah taasoo tilmaamaysa haddii uu shaki idinkaga jiray in dawladdiinu ay shaqaynayso waxaad aragtaan in ururkii aad u baahnaydeen inaad la shaqaysataan inaad idinkugu nimid inaad idin saxiixno si 22 kale oo wadan oo Afrikaanka oo xubno ka ah xuquuqda ay leeyihiin ganacsatadeenuna ay u yeelato حقنا لو إلالين كرو si suuqa aad u baahantiin aad u heshaan si dhaqaalihiina aan loogu takrifalin si la idin sharfo macnaheedu waxay tahay in dawladda Soomaaliyeed ay ka shaqeynayso in la xoojiyo lafdhabarka dawladnimada waa dhaqaalahana waxa lafdhabar u ah ganacsatada Soomaaliyeed ama dalka gudihiisa ha joogaano ama dibaddiisa ha joogaano in loo fududeeyo inay qayb ka noqdaan hay'adaha dhaqaalaha kobciya dunida waa waxa aan aaminsanahay inay kaalinta ugu weyn ka qaadan karto ama ka qaadanayso dib u dhiska dalka waxaan rabaa markii inaan dhowr eray iraahdo erayga koowaad waxa ay tahay horta idinku maadaama aad tihiin ganacsato Soomaaliyeed dad Soomaaliyeed isku duuban dhaqaale wadankan ku haysta dhaqaalihiina waxa ku ilaashan kartaan dalkiinana inaad qayb ka qaadataan inaad dib u dhistaan idinkuna aad isku duubnaataan idinkoo isku duuban oo hal cod leh oo hal jaaliyad leh oo hal safaarad leh ayaa la idinka rabaa inaad la xisaabtantaan adduunyada inteeda kale hadda maadaama aad COMESA qayb ka noqoteen oo safaradiina iyo ganacsigiina iyo shuruucdiina wax walba idin dib yaraan doonto annaguna aan kala shaqeyn doono waxaa loo baahan yahay dhaqaalaha wadankan aad gelisaan inaad ka fikirtaan sida aad dalkiina ku gelin lahaydeen markaad warshad Soomaaliya ka furtaan shaqaad u abuuraysaan dad Soomaaliyeed guri markaad dhistaan canshuuraad bixinaysaan nolol markaad samaysaan dad Soomaaliyeed ay idin kula noolaanaya dawladnimada marka waa inaad nala qabataan sida gudoomiyaha jaaliyaddu uu sheegay marka bilowga dawladnimada halkan waxaa noogu yaala
دول شرف له وواجي دول النماذج إنه أي عركة مريسي واجي أنا جو أنا أفريقيا كحرية دلنا هذين جرني واجي أنا دلنا كل أفريقيا عيدا كوس ودري جرني واجي عيدا ماذا إن اللي يقاني اللي بحيد أفريقيا واجي لديه جري مركي أفريقيا أي وررت الصومالية محي ثلاثة تاي دولكي أنك قدرني سفارة أنك قدرني أي هل كنت تعال سي أنا نوجا بابين ولورت الدول النماذج إن تغيب كتهين صومالي دقن رئيسان بيو وعن ربا إن بلاودان إن تكشف غيسان إن لستان سفارة دين سفارة صومالية أنا جا وضل عرورتي نواري دونتا أنا قلنا حين كلا شقين إن عندنا بس إن عندنا نمادنا كيف كان نقولنا ودبنتي إن دولة الصوماليات يروينها أفريقيا كوميسا كان نقطة حبن وحيد هاي الدنيا أيا أقبل شيء إن صوماليا صونولا صومالي أما ضد شخصياته ولي آمن سن ضد شخصياته ولي أعيل قباء قبيالة ضد شخصياته أعيل قباء ولي سد برسي ضد شخصياته أعيل قباء إن يدنتو ذكو جاران إن قلوب الصوماليات حدود كلا سمايان وعين كعد سنة إن هذا كأقبلنا داغن حوق لننا يدينكو إن دلكين الدب لوصو نوري وعن دين شيء جاي دل كان أدجوكتان إن هذا شرف يا كرامك ويلينا قفنا أول نقولنا مرتي دلكينا قيب كقات دلكين أدجو دستان أنا ذو حماية أن كنا بتسافر قابن لكن شغال أنا نمدي نهري قل شيء لكن وعن رواقنا ستة إن بلان لقوا ما دام قدومي وعطسي سفارة دين لبسوا وحنا دين معنا إنها بوقشة نقدر نكتان أنيجا أمام مدحوينها لبدا نقف كمدا ما شاء الله لكن أبابنا وردها رئيس الوزراء مدحوين وقف نصدر سفارة دام بسينا هديات مقالوين كوطن كان مت كمدا نقاليه إنه بقول كي بصد الأوياء وحنا من سنة سفارة ديرنا لسه كرتان لسه سفارة ده أنا كنا وايدين معنا ساسا بلن قادر